الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. marka haddaan soo ogaanay inta uu qaybsamayo mujaradka, waxaa muhiim ah inaan ogaano qaabka loo wasnayo kelimaadka mujaradka ee kala duwan: thulaathiga, rubaaciga iyo khumaasiga. mar kastana qalbiga ku hay markaa wax miisaamaysid cadad alxuruuf, alxarakaat waasakanaat iyo altartiib. mawsuunka iyo miisaanka xagga tirada waa inay iska waafaqaan. cadad alxuruuf xagga xarakada iyo sukuunka saaran xuruuftana waa inay iska waafaqaan, iyo xagga tartiibkaba. thulaathiga aan ku bilowno, horeyna waa usoo marnay thulaathiga. mithaal cinabun waa kelimad thulaathi ah, 3 xaraf bay ka kooban tahay: alcaynu walnuunu walbaa. miisaankana wuxuu ka kooban yahay marka 3 xaraf: faa iyo cayn iyo laam. saad aragtaadna xarakaadkiina waa iswaafaqeen. cinabun wasankeedu marka waa ficaalun. alrubaaci waa thulaathigii oo wax lagu daray. mithaal dirhamun waa kelimad rubaaci ah, 4 xaraf bay ka kooban tahay. daalka waa faa'u lkalima, kasraa saaran, fa'da marka kasra sii. raa waa caynu lkalima, sukuun baa saaran, cayntana sukuun sii. haa waa laamu lkalima aluulaa, waa laamtii koowaad, waxaana saaran fatxa. miimta waxaa loo yaqaanaa laamu lkalima athaaniya, waa laamtii labaad, waxaana saaran marka dammataan. marka dirhamun wasankiisu wuxuu noqonayaa ficlalun. sida ku muuqata, mujaradka rubaaciga qaabka loo miisaamayo waa qaab iska sahlan. waa thulaathigii oo 1 xaraf lagu daray. mithaal labaad, jacfar waa kelima rubaaci ah, 4 xaraf bay ka kooban tahay. miisaankuna wuxuu ka kooban yahay 4 xaraf: faa iyo cayn iyo 2 laam. laamta koowaad waxaa loo yaqaanaa laamu lkalima aluulaa, laamta labaadna laamu lkalima athaaniya. jacfar marka wasankiisu waa faclalun. cadad alxuruuf, alxarakaat waasakanaat waa iswaafaqeen. khumaasigana qaabkaasoo kale weeyaan. sida rubaaciga aad u miisaantayaan khumaasigana u miisaamaysaa, 1 darajo dheeryahay. mithaalkeena waxaa weeyaan farasdaq. farasdaq wuxuu ka kooban yahay 5 xaraf. xarafka koowaad alfaa waa faa, miisaankiina wuxuu noqday faa, muwaafaqa weeyaan. marka mawsuunka iyo miisaanka waa iswaafaqi karaan. almuhiim ada waxaa lagaa rabaa xarafka koowaad waxaa la yidhahdaa faa'u lkalima, ama fa ha noqdo ama wax kale ha noqdee. xarafka labaad raa waa caynu lkalima. xarafka saddexaad zaay waa laamu lkalima aluulaa. xarafka afaraad daal waa laamu lkalima athaaniya. intaas marka sida rubaaciga kolaad ula dhaqantay. qaafkii oo xarafka 5aad ah waxaad keenaysaa laam 3aad, waxaana loo yaqaanaa laamu lkalima athaalitha, waa laamtii 3aad. marka xagga cadad alxuruuf waa iska waafaqeen. alxarakaat waasakanaatna waa iska waafaqeen. marka waxaan leenahay farasdaq waa calaa wasni facallalun. facallalun. marka sida kuu muuqata, laamtii koowaad sukuun baa saaran, laamtii labaadna xaragaa saaran. marka meeshaas waxaa ka soo baxay shadda. khulaasatu lqowl, mujaradka hadduu thulaathi yahay 3 xaraf ayaa lagu miisaamayaa: fa iyo cayn iyo laam. hadduu rubaaci yahay 4 xaraf baa lagu miisaamayaa: fa iyo cayn iyo 2 laam. hadduu khumaasi yahayna waxaa lagu miisaamayaa fa iyo cayn iyo 3 laam. mar kastana waxaad ilaalinaysaa cadad alxuruuf waalxarakaat waasakanaat waaltartiib.
halkaana marka waxaa noogu dhammaaday mowduucii almujarad. 3 mas'alana uga soo hadalnay. mas'alada koowaad xadduhu mujarad tacriifkiisu waa maxay. waxaan ku soo qeexnay mujaradku waa kelimada xuruufteeda oo dhan ay tahay xuruufun asliya. mas'alada labaad waa aqsaamuhu mujaradka meeqa u qaybsamaa. waxaan soo sheegnay inuu u qaybsamo 3 qaybood: thulathiyun, rubaaciyun, khumaasiy. mas'alada ugu dambeysa waxay ahayd dariiqatu wasnihi, dariiqada iyo qaabka loo wasno mujaradka. waxaan soo sheegnay thulaathi hadduu yahay fa iyo cayn iyo laam baa lagu wasnayaa. hadduu rubaaci yahay fa iyo cayn iyo 2 laam. hadduu khumaasi yahayna waa fa iyo cayn iyo 3 laam. waxaa xigi doona موضوع المزيد. هذا وبالله توفيق، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.